waxaana wanaagsan daawadayaasheena qiimiga badan waxaad ku soo dhawaataan xog aanu idinkaga diyaarinay saddexagalka Bermuda oo sahmiyaal caalami ah ay u bixiyeen saddexagalka shaydaanka. saddexagalka Bermuda mucjisada Atlantic. daawadayaal inta aanan bilaabin warbixinta fadlan subscribe dheh channelkan si aad u hesho wararka iyo warbixinaha aan halkan soo gelino. saddexagalka Bermuda waxa uu ku yaalaa inta u dhaxaysa xeebaha bari ee dalka Mareykanka, gaar ahaan xeebaha loo cadceedsiga tago ee Florida, jasiiradaha Puerto Rico, Bermuda iyo Bahamas. saddexagalkani badda ah waxaa lagu qiyaasaa ilaa 5 milyan oo square mile ah, waana badweyn maran oo aan lahayn wax jasiirad ah. Bermuda waa jasiirad qurux badan oo jawigeedu yahay mid kulaala xigeen ah. waxay leedahay xeeb qurxoon iyadoo la eg 3 meelood oo meel baaxadda magaalada Washington DC, caasimadda waddanka Mareykanka. dadka jasiiradan ku nool waxaa lagu qiyaasaa 65,000 oo qof. waa meel ka durugsan dunida inteeda kale, waxaana u dheer inay tahay meel godan ama bad aad u gundheer. jasiiradan ayaa ka samaysan volcano ka soo kacday badda gunteeda oo dibadda u soo baxday, iyadoo dhererka jasiiradan uu la eg yahay ilaa 1 mayl. markeedii hore Bermuda waxay ahayd meel ay ku gadaaman tahay cabsi oo dadka ay ka fogaadaan, waxaana cabsida ugu badan laga qabay codad xilliga habeenkii laga maqlo jasiiradda. codadkaas oo ay hadda dadka ku nool jasiiradda ku sheegayaan inay yihiin shimbiro aan dunida inteeda kale laga helin, kuwaas oo sameeya jabaqdaas xilliyada habeenkii. waxaa jasiiradda booqda hadda dalxiisayaal badan oo lagu qiyaasay 500,000 dalxiisayaal ah, kuwaas oo u badan dadka Mareykanka, iyagoo halkaa ku taga maraakiibta dalxiiska. jasiiradda Bermuda waxaa laga helaa xayawaan badeed dunida inteeda kale ku yar, waxaana aad u xiiseeya oo taga dadka biyaha quusa. Bermuda waa meel dadka iyo waxa ay wataanba ay ku lumaan amaba si argagax leh loo waayo. mana jirto qeexitaan rasmi ah amaba heshiis lagu yahay, xitaa ma jiro wax la oran karo xal dabiici ah oo lagu sharaxi karo, balse saynisyahanada qaarkood waxay rumaysan yihiin in qeexitaan loo hayo mucjisada Bermuda, iyagoo ku tilmaamaya inay tahay cimilo aad u kacsan iyo mowjado waaweyn oo badda gudaheeda ka jira, taas oo ay ku sababayeen dabaylo u socda qaab wareeg ah. waxa kale oo ay ku micneeyeen inuu jiro magnad qalqaliya diyaaradaha iyo maraakiibta. culimada sayniska iyagoo sii sharaxaya mucjisada Bermuda waxay intaasi ku dareen arrimaha meesha ka jira dhibcaha oo ka soo baxa gunta hoose ee badda, taas oo qayb ka ah suurtagalnimada in maraakiibta halkaasi maraysa ay rogmadaan. waxaa jira dad badan oo ku maqan Bermuda kadib markii ay isku dayeen inay wax ka soo ogaadaan duuliye diyaaradeed oo la waayay, kaas oo ka tirsanaa ciidamada cirka ee waddanka Mareykanka. baadigoobka duuliyahaas la waayay waxa uu sababay iyana in la waayo 27 ruux oo howlgalka raadinta qayb ka ahaa. warbixinada laga qoray mucjisada Bermuda waxaa ka mid ah celcelis ahaan halkaas in lagu waayo sanadkii in ku dhow 60 markab iyo 5 diyaaradood. arrimaha sida weyn loogu xusuusto Bermuda waxaa ka mid ah muddo haatan laga joogo 50 sano markii maalin kaliya ay halkaasi ku dhaceen diyaarado badan oo ay lahaayeen ciidamada cirka ee Mareykanka, waxaana ay dhacday kadib markii ciidamada cirka ee Mareykanka, kuwaas oo saldhigoodu yahay gobolka Florida, ay damceen inay qaadaan howlgal tababar ah oo lagu ogaanayo mucjisada qarsoon ee ku duugan Bermuda. weli waxaad moodaa in la moog yahay mucjisada ku duugan Bermuda. haddaba wararka Bermuda goorma ayay soo bilaabmeen? haddii aan u daadegno jawaabta su'aashaas, wararka mucjisada Bermuda waxay soo bilaabmeen qarniyo hore. tusaale ahaan, sahmiyaashii dunida casriga ah markii ay isku dayeen jasiirado badan oo Bermuda ay ka mid tahay inay xog ka keenaan, waxay Bermuda kala kulmeen codad argagax leh oo xilliga habeenkii halkaa ka soo yeeraya. waxaana ay sahmiyaasha u bixiyeen Bermuda jasiiradda shaydaanka.
wixii ka dambeeyay 1945 waxaa jira dad badan oo qalinka u qaatay fikradoodana ku daray inay wax ka ogaadaan mucjisada saddexagalka Bermuda oo ah meel ay ku hoobteen diyaarado iyo maraakiib badan. arrinta la yaab kale ayaa ah in meesha liqda maraakiibta ay aad ugu dhowdahay marka loo dhawaado dhinaca jasiiradda Bermuda oo ku taala meel dhulweynaha Mareykanka u jirta 650 mayl, halkaas oo xitaa lagu waayo maraakiib culculus oo ah kuwa xamuulka qaada iyo noocyo kale. saynisyahanada dunida oo doonaya inay ka gungaaraan waxa sababa rogmashada maraakiibta diyaaradaha ku dhacaya badda iyo guud ahaan mucjisada ku dugan Bermuda ayaa sameeyay xarun darasta cimilada saddexagalka Bermuda. waxyaabaha wax laga qoray ee ka jira Bermudana waxaa ka mid ah dabaylo xoog badan oo mararka qaar ka dhaca halkaas kuwa oo xitaa burburiya magaalooyinka u dhow jasiiradda. sidoo kale waxaa jira hilaac iyo danab xoogan. khubarada qaarkood waxay sheegayaan in dabaylaha hilaaca iyo danabka meesha ka jira ay yihiin waxa sababa in maraakiibta iyo diyaaradaha la waayo marka ay halkaasi dul marayaan. arrimaha kale ee loo aaneynayo waxaa ka mid ah dabaylaha wareegga ee ah kuwa biyaha xambaarsan, kuwaas oo inta badan ka soo kaca dhinaca saddexagalka Bermuda. waa daruuro wareegsan oo khatar badan, waxaana gudaha Mareykanka looga yaqaanaa tornado. waa dabaylo xagga sare roob uga eg, balse waxaa jira biyo si dhuuban ugu wareegaya oo isku qotomiya dhulka ilaa baarka sare ee daruurta, waxaana ay burburisaa dhammaan meelaha ay marto. khubarada qaar ayaa ku doodaya in dabaylahaasi kor isu taagay ee wareegaya inta aanay soo gaarin bariga inay badda ku soo jiraan maraakiibta amaba diyaaradaha, taas oo ay dadka qaar rumaysan yihiin inay tahay suurtagalnimada ugu dhow ee lagu sharaxi karo mucjisada Bermuda. halista kale ee ka jirta gudaha Bermuda waa mowjado waaweyn oo dusha ka mara dhammaan maraakiibta iyo qalabka kale ee badda lagu maro, kuwaas oo aanan la ogeyn sifaha degdega ah ee ay ku bilaabmaan. inkasta oo waxa ka jira saddexagalka Bermuda ay yihiin xaalado rabbaani ah, haddana khubarada caalamiga ee ku xeel dheer dhinaca sayniska waxay isku dayayaan inay ka gungaaraan cilmiga meeshaasi ka jira, iyagoo sameeyay machad baaritaan oo ka wardoona sagxadda hoose ee saddexagalka Bermuda si loo ogaado waxa ay ku dambeeyeen maraakiibtii iyo diyaaradihii ay liqday Bermuda. si kastaba ha ahaatee waxaa la isku dayayaa in jawaab loo helo sababta ay maraakiibta iyo diyaaradaha ugu dhacayaan Bermuda. fadlan daawade la soco qaybta labaad xogta aan daaha kaga qaadayno mucjisada saddexagalka Bermuda. haddii aad nagu cusub tahay subscribe channelka si aad u hesho wararka iyo warbixinaha aan halkan soo gelino. waa mahadsantihiin.